galmudug doorasho laga qabto doorasho degdeg laga qabto si aan khilaafaad iyo hadda abaabul uusan ka dhasha doorashadaas oo aan maaragta la qaban marka anigu waxaan ku baaqaynaa oo aniga si shakhsiyan waliba aan u leeyahay waa in doorasho degdeg galmudug laga qabto galmudug waa deegaankaaga muqdisho marka laga yimaado oo ka soo jeedid sida oo heshiiska ahaa ama ku qorneed in doorasho la qabto muqdisho iyo galmudug laga qabto June iyo July oo hadda soo dhamaatay golaha deegaanka la soo doorta wali wax ma muuqdo maamul goboleedyadii arrinkaas oo caqabado badan ama dacwado badan ama doodo badan dadka ay ka qabaan arrinkaas ka nabadoon ahaan beelaha habiyo afayeenka maadaama aad tahay maxaa idinkaga muuqdo oo biyadiila ah in doorasho la galo wallaahi aad iyo aad horta ma san tahay horta marka hore waxaan rabaa galmudug ayaamahan dambe amaba muddo dheer dagaalo beeleed ayaa ka jiray horta marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmaba dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto dadkii ku dhaawacmana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u boogadhayo waxaan rabaa horta baaq inaan u jeediyo dadkaas walaalaha ah oo maaragta dagaalkaas uu saameeyay dagaal beeleedyada inaan baaq u jeediyo oo aan idhaahdo dagaalka waa in la joojiyo waa in dagaalka wada hadal lagu bedelo waa in qoriga qalin lagu bedelo dagaalkaas wax aan dhimasho iyo dhaawac iyo agoon iyo asay aan ahayn oo laga dhaxlay ma jirto 30 sano iyo 20 sano iyo ka horba intii uu socday wax horumar oo laga gaaray ma jirto aslan waxaan leeyahay dagaalkaas waa dagaal adduun iyo aqrabeela dagaalkaas waa in la joojiyo oo dadka walaalaha oo wada dhaqan oo wada degan oo deriska oo abtiga iyo adeerka iyo ehelka isku ah inay ogaadaan gadaalna u xisaabtamaan wixii hore u soo dhacay iyo wax faa'iido in lagu hay hebel dhimay hebel dhaawacmay hebel waa barlis hebel waa agoon hebel asay wada waxaan ahayn oo laga keenay inaysan jirin inay ku baraarugaan waxaan rabaa oo kale dawladda federaalka Soomaaliya inaan baaq u jeediyo iraada dadkaas waa in dib heshiisiin iyo maaragta kala dhaxgelid iyo wax walba oo la awoodo in lagu bixiyo waxa soo hartay arinta kale maamulka meesha ka jiro maamulkana waxaan ugu baaqayaa arintaas in waqti la geliyo oo lagu baxo oo dib heshiisiin dadka loo sameeyo ayadana waa sidaasaan ugu baaqay shacabka iyo odayaasha 9 beelood ama meesha ku dagaalamo adinkii waxa u badan beelaha adiga ka soo jeeda ama afayeenka u tahay maxaa ugu bixi weedeen oo inta xamar ka baxdaan tagtaan dadkii oo baaqa afka soo kama fiicnaan inaa baxdaan oo meesha tagtaan dadka baaqa wallaahi walaalkay waa maasan tahay horta dhowr jeer meesha waa la tagay hay'adoo maaragta arintaas masaalaxeeda la wado muddo dheer iyo waqti badan waa lagu bixiyay ummadda Soomaaliyeedna dalka dibadiisa iyo gudihiisaba intaba arintaas sharar badan waa ka yeelatay si dagaalaadkaas ahliga ah loo joojiyo waqti badanna waa lagu bixiyay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa maray noqotaba ilaahay nasrigiisu oo dhamaado waxaan rajaynaynaa dadkaas in dawladnimada iyo waxa aan ka soo sheekeeyay oo hoog iyo ba aan ahayn oo dagaalkaas lagu helayo ma jirtee ilaahay qof walba qalbigiisa inuu geliyo in dagaalkaas dagaal dambe iyo qabiil dambe oo isdila iyo maaragta dib dambe in galmudug iyo Soomaaliya oo dhanba ilaahay inuu ka dheereeyo aan ilaahay weydiisanayno dagaalka marka laga imaado ayadoo dagaalkii oo dib lagu qabay adoo harsan way lagu soo hooyay hubaa la soo geliyay oo dawladda ilaa hadda baaritaan ay sheegtay inay ku maqan tahay odayaashii ama suldaanka guud Caawid Waaq ama beesha degta Caawid Waaq ku asagana sheegay in xiriirkii uu jaray galmudug iyo dawladda dhexeba hadii aan laga soo talinin hubkii ay yimid dawladda galmudug si kale u hadashay ka nabadoon ahaan caqabadaha hubkaas horta iyo arimahaas xaaladii oo dagaaladii jiray kaga sii dartay ma la dhihi karaa galmudug wallaahi walaalkay horta waa maasan tahay horta waxaan aad uga xumahay ayadoo hadda maanta qarnigan maanta la joogo xilligan maanta la joogo oo dawladdii iyo horumarkii iyo wanaagii aan hadda ka soo sheekeynayno dawladda Soomaaliya ay ku talaabsatay haddana ay ku taagan tahay in horta hub dad shacaba oo hadda maaragta midkii aan ka soo sheekeynayna ah oo isdilayay oo maaragta inuu gacantooda galo horta aad aan uga xunahay
waana dowladda hadda difaaciisa aad lahayd wax fiican ay qabatay laakiin lagu dhaliilaa in ay wallaahi anigu ma aaminsani anigu taas ma aaminsani dowladdu sida ay sheegtaba ayada oo hubkaas gacanta ku soo dhigtay oo ay galbinaydo ayaa maaragtaa dad qabiila oo tiknika haysta oo qori haysta ayaa maaragtaa gacantoodu galay ayadoo weliba ku dadaalayda hubkaas in la seefgareeyo oo laakiin maamulkii galmudug oo meesha ka jiray wallaahi maamulka sidaas maamulka asaga ayaa laga rabay xuduudaha iyo arinta hubka la socodkiisa iyo xogtiisa iyo inuusan dadka shacabka gacantooda gelin inuu maamulka ka shaqeeyo ka dhaqan ahaan ugaaskii beesha cabid waa ku hadlay adiga maxaa war wallaahi anagu hadda ma rabno ugaasina hadda u jawaabi mayno arintaasna waa arin aan aad uga xunnahay in maaragtaa sidaas ay wax u dhacaan wixii madaxdii iyo dowladdii federaalka soomaaliyana arintaas way ka hadashay dowladdu madaxweynaha ayaa guddiga amniga qaranka fariisiyey oo arintaas daarkshan gareeyey go-aan uu ka soo saaray golaha wasiirada fariistay guddiyaa la diray baaritaan iyo xogaa la diray annagu intaasaan ka warsugaynaa arrimaha doorashooyinka maadaama arrimaha doorashooyinka horta guud ahaan galmudug ayadoo dagaalaadkaas iyo qabaylaadkaas hadda maaragtaa colaadahaas ay ka jiraan ayaa xoogaa hadda maalmahana culays siyaasadeed iyo waktiga doorashada oo la joogo maaragtaa ayaa kusoo fool yeeshay anigu marka waxaan ku baaqayaa in galmudug doorasho laga qabto doorasho degdega laga qabto si aan khilaafaad iyo hadda abaabul uusan ka dhasha doorashadaas oo aan maaragtaa la qaban si aysan u saameyn hadda culaysaadka jira in doorasho degdega laga qabto galmudug soomaaliya oo dhanna waxa khilaafaadka keena meelaha khilaafaadku ka yimaado meelaha culayska uu ka yimaado doorashada ayaa 80% ugu badan waxyaabaha dadka wax kala geliya marka anigu waxaan ku baaqaynaa oo aniga si shakhsiyana weliba aan u leeyahay waa in doorasho degdega galmudug laga qabto culaysaadka iyo hadda maaragtaa jiitanka iyo abaabulka siyaasadeed iyo wax kaloo hadda ku soo kordha si aysan u saameynin galmudug waxaa og tahay hadda 4 sano iyo hadda bilahan kale oo sanadkan intii ka dhamaatay oo galmudug ay jirtay galmudug waxay ahayd galmudugtii hore ma aysan ahayn galmudugta marka si aan wadooyinkii iyo culaysaadkii iyo hadda iyadoo weliba cabasho badanna waa jirtaa oo cabasho badan iyo culaysaad badan iyo waxyaabo badan reer galmudug markaad waraysato oo dadka ama eliidka dadka markaad waraysato qof walbaaba wuxuu u leeyahay galmudug waa inay doorasho degdega gashaa oo aan waxaa leedahay marka dhaqan ahaan dagaaladaas iyo xaaladahan dagaal beeleedyada doorasho in la qabta xal ku yahay horta dagaalaadkaas ahliga ah waa iska jireen laakiin haddaan doorasho la qaban culaysku waa sii siyaadaya khilaafaadka ugu waaweyn madaxweynaha iyo waxay ku doodayaan in weli waqtigooda aan la gaarin oo maxay ahayd waqti doorasho awsad diyaar u ahayn hadda waxaa la joogaa xilligii doorashada la soo sheegay oo galmudug waxay ahayd juun iyo julaay in maaragtaa doorasho ay ka dhacdo oo golayaasha deegaankeeda sidii lagu heshiiye waayo oo madasha qaranka ay ku heshiiday haddana Novemberna inay doorashada madaxweynuhu ay dhacdo marka anigu si guudba hadda hoos detailskeeda si gaar ah detailskeeda si hoos anigu ma rababa si detailskeedaas iyo maaragtaa inaan qaab siyaasi u hadlo oo aan maaragtaa arrimaha si siyaasadii uga hadlo ma rabo baaqa kaliya aan jeedinaa waxay tahay si aan culays iyo isqabsi iyo kala aragti duunaansho aysan uga dhicin waa in galmudug doorasho la qabtaa ma la dhihi karaa marka dhaqanka maadaama aad tahay nabadoon cabdinuur wuxuu leeyahay haddaan doorasho la qaban dagaalo kala dhacayo ma loo fasiran karaa warkaaga aniga taas ma dhahayo aniga horta waxaan ogahay oo si waaqica ah oo ma ogtahay ummadda dhan ay ogtahay dagaalaadka iyo caqabadaha iyo culaysaadka horta badanaa wuxuu ka yimaadaa dhanka siyaasaddana haddaysan mandate lahayn oo doorasho qof walba mandate uu leeyahay
madaxweynayaashu mandate leeyihiin xildhibaanadu mandate leeyihiin golayaasha deegaanku mandate leeyihiin qofka waxaa la rabaa xilligii uu mandate ka haystaan in lala shaqeeyo waqtiga mandate uu ka dhamaadana in doorashadaas si aan caqabado iyo culays iyo abaabul siyaasadeed wax ku yimid oo khilaaf ah dadka aan loo kala dhexgelin waa in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdaa doorasho waa inay sidaas marka si guud aniga hadda ma rabo ma ogtahay sidii siyaasiyiinta oo dhaliisha iyo qofkaasaan jeclahay iyo qofkaan nabcahay iyo saana jirta ma rabo ka oday ahaan anigu waxaan u soo jeedinayaa iyo ka mas'uul ahaan waxaan anigu soo jeedinayaa in doorasho degdeg galmudug laga qabto waxyaabaha dadku ay heshiiska ku yihiin mu'assasaadka ah oo ummadda ka dhaxeeyana wixii heshiiska lagu ahaa waa in la ilaaliyo